السلام عليكم دمان أمد الصوماليات وأنا دكتور بهجة عبد الله أهنا وريه الصوماليات waxaa laga yaabaa in qaar idin ka mid ay la socdeen xogtii aan idinla wadaagay toddobaad ka hor ee ku saabsan dhibaatada ay la kulmaan muwaadiniinta Soomaaliyeed oo caafimaad ku yimaada magaalada Hyderabad ee dalka Hindiya. Maanta halkii laga tixgelin lahaa codka dadkaas aan matalay waxaan wajahayaa handadaad iyo cabsi gelin iga imaanaysa dad aan u maleynayo inay danahooda gaarka ka hormarinayaan dhibta haysata walaalina Soomaaliyeed. sidoo kale dadka ayaa doonaya wax walba oo aan goobjoog u ahaa in si hoose loo xaliyo. Maanta wax kasto oo aniga indhahayga aan ku arkay dhacdooyin khaasatan aan la murugooday weliba aan ka baqsan waayay inaan hide gareeyo ama aan qariyo ayaa haddana waxaan ku dhiiraday in aan bulshada Soomaaliyeed xaqiiqda ka jirta magaalada Hyderabad inaan ugu soo waramo. waxaan rabaa in halkan si cad ah ugu dhaho anigu waxaan Hyderabad ku joogaa sharci mana jirto cid sharci dara ah igu eriyan kartaa mana ka baqanayo inaan codkayga u adeegsado sidii aan u difaaci lahaa dadka aan codka lahayn. sidoo kale dadka wax maalmihii la soo dhaafay isku dayayeen inay report gareeyaan ama hawada ka saaraan barayga bulshada si aan ugu baaqsado xaqiiqda jirta ama si hoose in loo xaliyo. intan meega hayo waan hadli doonaa si xaqa loogu heliyo si daryeel loogu helo kuwa xanuunsan ee gacan u baahan insha Allah. waan sii wadi doonaa ka hadalka arrimaha muhiimka ah ee saameeya bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan. codku waa mas'uuliyad anigana waan gudanayaa insha Allah. salaam.